السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha ku xidhan Somali Cryptofolio soo dhawaada dhammaan. maanta arrin muhiim ah ayaan idin hayaa oo dad fara badan ay la socon. marka videoga si fiican u daawano. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. akhyaarta sharafta badan ee ku xidhan Somali Cryptofolio iyo ardaydeena iyo dadka markasta la socda insha Allah akhyaarta inta ayna videoga bilaabin haddaad nagu cusubtiin ku dadaala inaad badhanka subscribe-ka inaad saartaan oo aad kanaalka ku xidhnataan gambaleelkaana click ku sii all si wax kasta aan sameeyo uu markiiba kugu soo dhaco badhanka like-gana click ku sii siina share garay videoga si uu u gaadho meelo fara badan wixii comment ana insha Allah taala inagu soo qora ilaahay idin barkeeyo haddii inta aad sameysaan subscribe iyo like iyo share kanaalku aad buu kala kacayaa ana dhiirigelin bay ii tahay inaan videos fara badan oo qurux badan oo quality ah oo ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysato inaan markasta idin diyaariyo barakallahu fiikum markay dadku iibsadaan cryptocurrency token ama coins oo exchange-da kaga tagaan maxaa dhaca marmarka qaarkood waxaa dhaca coin-ka ama token-ka in uusan exchange-ku u baahnayn khalaas yani wax faa'iido ah ma aha liquidity ma laha wax shaqeynaya ma aha ama teamkii iska lahaa ayaaba khalaas meesha iskaga tegay oo tokenkii ama coinkii wax faa'iido ah ma laha exchange-kuna kama faa'iideysanayo sababtoo ah tokenadani marka ay ku dhex jiraan exchange-yada way ka faa'iideystaan macnaha exchange-ka faa'iideysanaya sababtoo ah dadka kale iibsanaya iska iibinaya lacagaha kan kala duwan exchange-ku faa'iido ku leeyahay oo wuxuu ku leeyahay commission wax yar baa laga jaraya oo moogtay trading fee-ga ah marka coinkii ama tokenkii marka la arko inuusan waxba ahaynba oo faa'iido lahayn go'aan bay ka gaarayaan teamka ka mas'uulka ah exchange-ka ama suuqa oo waxay oranayaan tokenka meesha laga saaro marka dadka waqti bay siinayaan waxay oranayaan mesela taariikhdu markay caynka tahay tokenka ama coinka waa laga saarayaa exchange-ka marka qofkii wax ka haysto ka saar exchange-ka oo meel kale u wareeji fair enough cadaalad weey marka qofku inuu raadiyo exchange uu ku wareejiyo hantidan sababtoo ah haddaad kaga tagtid meesha khalaas de wax weeye waa laga saarayaa waxaad soo noqonaysaa yumkin waqti muddo kadib waxaad arkaysaa coinkaaga meesha ku jirin oo lacagtaadana khalaas lacagtaadana hawada gashay waxaan garanayaa 2017kii coin kamida coinanka wax yar baa ku jiray $1 mise $2 mise $5 wax yar baa ku jiray coinkii waqti baan u waayay inaan eego waxa lagu sameynayo delist exchange-ka dhowr week kadib waxaan arkay coinkii meesha aan ku jirinba waan eegay waan baaray dib baan ugu noqday waxaanba ogaaday 6 bilood ka hor bay announcement sameeyeen oo yiraahdeen coinka waa laga saaraya meesha marka taas waxay ahayd waqti hore taqriiban 8 sano kor bay ahayd marka 10 weyn bay ahayd qofku inuu markasta ka taxadaro marka waa u sheegay asxaabtii iyo dadkii ardayda ahaa waxaan ku iri baasha laga taxadaro coinka marka suuqa laga saaro waxa weeye marka la yiraahdo suuqa laga saaraya waa inaad diyaarsataa exchange kale oo aad u guurtid dadku way kala duwan yihiin dadka qaarkood waxay haystaan 2 exchange qaarkood 3 qaarkood 4 qaar baan garanaya 10 exchange furtay mana fiicna inaad 10 furtid waxa ugu fiican ama 2 ama 3 haday ugu bato 3 ka badnaan 3 exchange ka badnaan lan waxa sheegay lacagaha investment-ka ah ee maalgashiga aad ku sameynaysid mustaqbalka asleedahay waqti dheer muddo dheer iska hayso kuwaas waxa fiican inaad gashitid Legend taana dhowr jeer waan ka hadlay Legend Cold Wallet-ka ayaa ku fiican inaad lacagahaas kala gashitid laakiin kuwa aad kala soo baxaysid xaqalcaanahaaga aad xoogaa gashitid exchange-ka u deysan kartaa maadaama aad trade sameynaysid oo marba aad xoogaa xaqalcaanaha kala soo baxaysid laakiin investment markaas waxaan kula taliyaa ardayda inay Legend qaataan taasaa muhiim ah Twitter-ka waxaan soo dhigay 3 exchange ama 3 suuq oo crypto-da ah dad aragtaan Twitter-ka wuxuu Rajo Academy 24 soo booqda 3 exchange mid kasta wuxuu ku dhawaaqay tokenada iyo coinanka laga saar doono exchange-kooda exchange-ka ama suuqa ugu horeeya waxa weeye waa suuqa Binance waxa weeye suuqa ugu weyn ee dadka badankood ay isticmaalaan kala badna waa Coinbase weeye haddaad click ku siisid show more wuxuu ku tusayaa detailskii oo dhan ka saddexaadna waxa weeye waa L-Bank isaga laftiisa waxaa lagu dhawaaqay tokenada iyo coinanka laga saari doono marka ku dhufo show more waxaa ku soo baxaya informationkii iyo coinankii ku jiray meesha oo dhan marka haddaad aragtaan coinanka qaarkood ee ay ka saarayaan qaarkood waa xalaal qaarkood waa xaraan wax kasta noqon karaan sababta aniguna aan u soo dhigay waa maxay informationkii aan ka soo qaaday exchange-kooda isagoo aan waxna ka jarin waxna ku ziyaadin ayaan soo dhigay dadka qaarkood is weydiin karaan waxay oran karaan oo ustaado coinankan qaarkood waa xaraan maxaan soo dhigtay yes coinan xaraan xitaa haday yihiin waa soo dhigayna sababtoo ah waxaa laga yaabaa dad baa coinanka ku haysta exchange-yada oo aan garanayn aan baaritaan samayn inay waxay xaraan yihiin oo laga yaabaa markii ay arkeen xogtan iyo information-kana soo dhigay inay dib u baaraan oo ilaahay xaqa tuso
oo ay dib u baaraan oo ay ogaadaan coinka inuu xaraan yahay laanna muhiimadda ugu weyn cryptocurrency markaanu ka shaqaysanayno in aynu meel xalaal ka shaqeyno taas aynu ugu muhiimsan meel xalaal ah laanna coin badan baa jira iyo token badan baa jira oo xaraan ah marka qofkii waa laga yaabaa inuu garto coinkaas inuu xaraan yahay oo uu ka soo ceshado raasmaalkiisii laanna waa lagu ogol yahay inaad wixii haddaadan garanayn inuu xalaal yahay oo aad ogaatid inuu xaraan yahay inaad raasmaalkaa ka soo ceshatid waa lagu ogol yahay walakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun iska khaariji raasmaalkaaga kala soo bax mid kale oo xalaala ku bedelo taasaa ugu muhiimsan walidaalika waan soo dhigay coinanka oo dhan marka waa adiga mas-uuliyaddaada wey inaad baadhid inaad eegtid maalan coin la dhaho a b c baa ku jira meesha coinkaas aad haysataa waa laga saarayaa exchange-ka waad iibsatay mana ogid waxa uu yahay laanna waan garanaya dad badan baa ku jira crypto iska iibsada wax kasta yalla ishtari iska iibso saasuna sax ma aha inta aadan wixii iibsan inaad baadhaa xalaal baa mise waa xaraan marka hadalkaas wuxuu ku socdaa dadka haysta coin ay garanayn waxay yihiin markay arkaan coinkooda ama tokenkooda in dilis lagu samaynayo laga saarayo meesha inay dib isugu noqdaan baadhaan culamada u tagaan hadday ogaadaan inuu xalaal yahay ama xaraan yahay almuhim way ka saarayaan meesha hadduu xaraan yahay raasmaalkiisu ka soo ceshanayaa hadduu xalaal yahayna meel kale u geenayaa oo wax kaleu ku bedelan karaa ama de USDT-giisu kala soo noqon kara hadduusan khasaare ku jirin marka intaasaan jeclaaday in aan idinka dabageeyo suuqa la socda ka faa'iidaysta suuqana wuxuu u baahan waxbarasho cilmi buu baahan knowledge markasta waxaan radaa nagu soo biir kaalay ka baro cryptocurrency-ga meesha quality-ga ah casharo duuban laga shaqeeyey lifetime ah usernamekaaga ad helaysid passwordkaaga ad helaysid dad kula shaqeeya ku garab taagan oo telefonaadkooda iyo kontaktkoodu kuu furan yahay anytime aad la xiriiri kartid korsooyin baraasyadoodu kala duwan yihiin laakiin ka ugu sareeya haddaad qaatid waxaa kaloo dhan ba lagu furaya free ka hooseeya haddaad qaatid inta ka hooseysa oo dhan ba kuu furmaysa free adigu more details dad u baahan tahay course lifetime ah oo weligaa lagala soo noqonayn oo lagaa ceshanayn waxa weeye halkaasaad ka aragtaa kontaktyadoo dhan waan soo dhigay halka waad arkaysaa nala soo xidhiidh telegramka nagala soo xidhiidh ama whatsappka waxaad tiraahdaa inaan wax bartaan raba waxa weeye lagu jawaabayaa si fiican baa lagaga dhaadhicin doonaa insha allahu tacala koorsooyinka radio academy ee quality-ga ah ee sidii qaab jaamacadeed loo duubay videoga like inaga ilaawa inaad dhac ku siisan like-a siina shargariya si uu kanaalku inoogu kala kaco oo meesar u gaadho waana walaalkiin axmed aadam oo idin leh xayaakum allah wabayaakum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu